smell what the Rock is cooking. Dwayne Johnson sidoo kalena loo yaqaano kolka uu joogo ringaha The Rock waa musaariciiste soo saaray iyo jilaasha ashadaha caanka ah. wuxuu ku dhashay 2 May 1972 dalka Mareykanka gaar ahaan Hayward, California. waa American iyo Canadian maxaa yeelay Mareykanka waa uu ku dhashay, Canadana waxaa ka soo jeeda aabihiis halka hooyadii ay ka soo jeedo Samoa. aabihiis, awowgiis iyo xitaa ayeeydiis waxay ahaayeen kuwa ciyaara musaaricada. wuxuuna ahaa yaraantiisii mid aad u jecel inuu noqdo sida waalidiintiisa. jilaagan Hollywoodka ugu mushaarka badan waxaa soo maray waqti adag oo uu xitaa $10 haysan, asigoona dadaal iyo hardan adag galay kadib markii uu arkay hooyadii oo la ilmeynaysa xaalad adag oo dhaqaale la'aan. xaaladan ayaana ku qasabtay inuu galo caalamka dambiyada, asigoona mar lagu soo eedeeyay xatooyo. waqtigii uu iskuulka dhiganayayna dhererkiisa wuxuu ahaa 193 sentimitir halka culeyskiisa uu ahaa 102 kilogram. sida uu xooganaa darteed waxay ardayda uu wax la baran jiray ku tilmaami jireen boolis qarsoon. wuxuu ahaa laacib xirfad badan markii uu ciyaari jiray kubadda cagta Mareykanka, asigoo uu ciyaari jiray kooxda Calgary Stampeders. waxaana ugu dambeyn ciyaartan ka niyadjabisay dhaawacyo isxixigay oo uu la kulmay, asigoona ku soo baxay mid bilaa hadaf bilaaniyad ah isla markaana bilaa lacag ah. balse isma dhiibin ee wuxuu go'aansaday inuu u jiheysto ciyaarta musaaricada ee qoyskiisa sumadda u ah. Exactly. inta uusan ku biirinna WWF wuxuu ahaa mid ka dagaalama United States Wrestling Association, asigoo la baxay kolkaas magaca Felix Cavana. markii ugu horeysay uu ka soo muuqdayna WWF waxay ahayd 1996, wuxuuna markaas baxsaday magaca Rocky Maivia oo uu ka soo gaabiyay magaca aabihiis oo ah Rocky Johnson iyo awowgiis Peter Maivia. wuxuuna magacan ka tanaasulay kadib markii uu jilibka ka dhaawacmay 1997, asigoo la baxay waqtigaas The Rock. waa shakhsiga ugu horeeyay ee 8 jeer ku guuleystay WWE da miisaanka culus. sidoo kalena wuxuu ku guuleystay 2 jeer oo WCW World Champion ah, 2 jeer oo WWF Intercontinental Champion ah, iyo 5 jeer oo WWF Tag Team Champion ah. waa xidiga ugu qanisan musaaricada dunida, waana xidiga sidoo kale lacagta ugu badan ku hela aflaamta uu jilo. aflaamta tirada badan uu keenay sida The Fast and the Furious iyo Skyscraper ayaana ka dhigtay inuu box office-ka ka noqdo dahab aan dhayal lagu helin. waxaana xusid mudan in $3.5 milyan oo dollar lagu siiyay filimkiisii ugu horeeyay abid ee The Scorpion King. waxaana 2007 lagu daray buugga Guinness World Records, asigoo noqday jilaagii ugu horeeyay ee filim lagu siiyo $5.5 milyan oo dollar. wuxuuna ahaa filimka uu lacagtaas ku helay The Mummy Returns. waxaa mar kale lagu daray buuggan 2015 kadib markii uu taageerayaashiisa muddo 3 daqiiqo oo kaliya ah la galay 105 sawir oo selfie ah. 2016 wargeyska The People ayaa u aqoonsaday ninka ugu soo jiidashada badan ragga caalamka, waxaana jira nin booskiisa gala kolka la jilayo falalka halista ah ee filimada. shakhsiga doorkaas qaata oo khatarta galana waa wiil uu adeer u yahay isla markaana aad u shabaha. wuxuu leeyahay shirkad soo saarta filimada oo lagu magacaabo Seven Parks Productions, asigoo doorar muhiim ah ka qaata filimada shirkadiisu soo saarto sida filimada Baywatch iyo Welcome to the Jungle. wuxuu soo saaray sanadkii 2000 buug uu kaga hadlayay noloshiisa, wuxuuna isbuucyo kooban ku noqday buugga ugu iibsashada badan. intii lagu guda jiray duubista filimka The Scorpion King, jilaaga lagu magacaabo Michael Clark ayaa suuxay kadib markii uu feer daran oo kama ah kala kulmay murqaweyne The Rock. feerkan ayaana yimid ayadoo la duubayo kilib dagaal ah. sanadkii 2006 oo uu xoogga saarayay filim jilista ayuuna si cad u sheegay inuu doonayo in magaciisa rasmiga ah loogu yeero lagana daayo The Rock marka uusan joogin fagaaraha dagaalka.